أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العالمين. nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa suuqa madiine isagoo maraya nin wuxuu arkay awr iibinaya markaasuu nebigu yidhi awrka maad iibinaysaa haa imise inta way heshiiyeen markaa buu nebigu ku yidhi soo raac awrka lacagtiisii baan ku siinaya waa nin reer baadiyaha ma garanaya nebiga sal alla alay slam magaalada madiine wuxuu u soo galay awrkaa inuu iibiyo hoggaankii buu hayaa rasuulku daba socda markaa buu nebigu degdegey maadaamuu nebigu xaq lagu leeyahay wuxuu doonayaa inuu ninkan horey lacagtiisa u siiyo ninkii reer baadiyena aayar buu u socdaa maadaamuu safar ka soo galuu soo daalay aayar buu u socdaa uu daba bildhaansanayaa markaa buu nebigu soo daymooda wuxuu arkay ninkii oo nin kale la taaganoo awrkii ka iibinaya markaa buu nebigu soo noqday wuxuu arkay ninkii oo lacag loo tirinayaba markaasuu nebigu ku yidhi war xaggee soonagii kale iibsannay ma ninkii reer baadiyaa yidhi gamaad iibsan markaa buu nebigu war waan heshiinay tama albayc qiimihiina waan ka wada hadallo waan isla afgarannay waxaad hadda iila socotay keliya inaan lacagtiisa ku soo siiyo markaasuu ninkii yidhi may igamaad iibsan markaa buu nebigu leey war waan kaa iibsaday muslimiintii reer madiine o dhan baa ku soo urmay waa la isku dhegaysanayaa acraabigii wuxuu leeyahay igamaad iibsan nebiguna waxa uu leeyahay war waan kaa iibsaday waan kaa gatay iyo igamaad gadan ninkii acraabigaa yidhi war inaad iga iibsatay markhaati ma haysataa markaa buu nebigu dadka sidaa u eegay khusaymata ibnu thaabit nin la yidhaah oo reer madiinaa soo boodo yidhi anaa markhaatiya buu yidhi inuu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu iibsaday maaragtaane awrka inuu kaa iibsaday anaa maragga furaaya markaa buu nebigu sidaa u eegay khusayma yaa khusayma markaan ninkan kale iibsanaynay meesha maad joogine seed markhaatiga aniga aad iigu qaadaysaa markaasuu yidhi yaa rasuula allah warkii samada ilaahay kaaga soo dhiibay ee jibriil uu kuu keenay baan kaa rumayne ma bini aadamkan aad baan u sheegi buu yidhi ma bayciga addoonkan ina dhex maray baad been ka sheegi inaad ka iibsatay waxaan ku rumaystay tidhidda aad tidhi waan kaa iibsaday intaa baan ku sadaqay buu markaa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi maanta laga bilaaba khusaymata ibnu thaabit saxaabiga la yidhaahdo maanta laga bilaabaa halka laba nin marag looga baahan yahay isaga keligii baa ku filan buu rasuulku yidhi nin acraabiya ayaa masaajidka nebiga dhexdiisa cawradiisii intuu la soo baxay ayuu masjidka nebiga dhexdiisa ku kaadiyey saxaabadu markaasay ku yaaceen markaa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam waar ka joogsada markaa buu nebigu saxaabadii ka joojiyey markaa buu nebigu ku yidhi waar ka joogsada kaadida ha ku goynine ka joogsada halkuu ku kaadiyeyna biyo ka badan ku shuba buu yidhi isagii buu nebigu markaa u yeedhay i kaalay adigu markaasuu nebigu fadhiiso ka yidhi uu fadhiisiyey masaajidkan ilaahay baa leh waa meel ilaahay lagu caabudo salaadaa lagu tukadaa qur-aankaa lagu akhristaa tasbiix iyo taxmiid iyo takbiir baa loogu talagale ee maaragtaane wax kale masjidka looguma talagelin isagii baa ka sheekeeyoo yidhi wallaahi ima dhibsan oo ima dilin oo ima aflagaadayn macallin isaga lamida horuma arkin dib dambana u arki maayo wuri macallin isaga lamida ilaahow aniga iyo maxamed noo naxariiso cid kale ha noola naxariisan buu ka yidhi saxaabadiisii buu nebigu ku yidhi halkuu ku kaadiyey biyo ka badan ku shuba innamaa bucidtum muyasiriin bucidtum waxaa adduunka laynii keenay oo laynii soo saaray inaad dadka xaqa u dhibrisaane inaad ummadda xaqa ku adkaysaan adduunka layniima keenin buu rasuulku yidhi masaajid jimcihii la buuxo oo aad loo tukanayo ayaa nin qurux badan oo dhar aad u qurux badan sita ayaa safka hore ku tukaday uu ka soo kacay culimmadiibuu u yimiday waxbuu dhegta ugu sheegay sheekhi imaamka mikrafoon qaato wuxuu yidhi ninkan walaalkeenayna dul taagan waxa uu leeyahay jamaca muslimiintu awlaad ilaahay ha ii weydiiyaan buu leeyahay u duceeye buu yidhi waa loo duceeyey
ما شاء الله هذا جمعية كانوا سوكعي دعادي بو شيكتي والله دعي هذا جمعية سدعات بو سوكعي دعادي بو شيكتي والله دعي نين علماء كمدا فكري وياري سوفر يسبيلو وعلى إمس هدومر قرستي بو كيري مركز ما بو قرسن با بالكورة من نكاس صحبا دعادي ساسي مسعونيسا دعادي مجمع عادني أوليادي علماء أوبر ودعيين الممكو عليا لماذا محو وين بليشك خلاف السنة سنة إلهية وخلاف سيئة طريقة دي الله مرة يسحنا ممرن مركا وصوك عليها يؤدي سقره دي سوحا لمريا نين أفر دمر الله أولي أبنى عن كتحن لكن مركو يري ما بقور سنبا أيا اللي يدور نمبر باك عقل دنه ورتا سوق قرسو ورتا نمبر كاسك سو صح ده نمبر كا إلهي بري طيب هذا الجمعيني كلو صوكعي نكي حالات دي سوق جاي حواشة كقاربة أيا يدور ورنا فريس وريا أنتوا إمام بمشي بفريسية علماء دي ما كتر وربا نكي دعاء الدنيا خير كبرناي دعاء الدون كي محاد فريسي سبا لقينه مركز سوري ورنا برباك قبل بورينك مسكحه وحكاية رقبة سيادكو قرطيو ده ما بقرسن بيوري ويس القرن نكي اللي أورنجري ولقى هاي دعاديس مستجابة هاي ما هين صحابي التابع بوها وحال لننكاسي نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أيا صحابتي سكوشيغو كسيري امداد اليمن عيدا كمجاهدين يمن كإمن دونا waxaa la socon doona nin la yiraahdo Uways bin Aamir baa la socon doona oo qarana oo sumba min murada ninkaasi waa nin jirkiisa baras baa ku dhacday barastiina ilaahay waa ka shaafiyay mawdicu dirham lacagta dirhamka meel la dhigo oo jirkiisa ku taala in la eg bay kaga hadhay barastii intii kale ilaahay waa ka shaafiyay hooyo ayuu ninkaasi hayaa hooyadiibu baari u yahay haddaad la kulantid buu nabigu ka yidhi Umar bin Khattab ninka waxaad ka tiraahdaa ilaahay dambi dhaaf ii weydii ka dheh عمر بن الخطاب الله رالي كان نقده مالنتو نبيغو أرنتا وشيغي إلى خلافة أبي بكر إلى خلافة سي دتك حجيدة يمن كإيمانايا أما دتك مجاهدين تحوجيت الجهاد كو إيمانايا مقالة مدينة جهاد شام بأمريكا لغو جهاد يولو بحيي إني جهاد كقيب قلام دتك او إيمانايا أبو عمر انتو نحمر أبو أورنجري هل فيكم أويس بن عامر أويس بن عامر مين نقو جرا أويس مين للسعودة أبو أورنجري دهنا مركز أورنجرين ما ينا لما صعدوا هذا سند كدنبه كل كي مادان حجيدو أي سو حجيان رأي مناد أي عمر تجرو أورنجرين من لا صعدا أويس مركز إيرادن سند ضرب عمر والنوت مادا أويس بان ويدي ساية مد أويس اللي يرادو أو ما ركتاني سك مسكينة أو فقيرة أو ضد كان ما ركتاني إيش وقبنا إيسا أنا نهين أيانا لا صعدي وما يسقي جيلي أن وضني يا أورتي أن فوشنين ayuu noo raacay oo maaragtay buuraha gadaashooda ayuu geela ku jiraa markaas Umar soo orday waxa la socday marka Umar ibn Khattab Abul Hasan Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ayaa la socday dadna markay u yimaadeen Umar uu wareystay ma Uways baa tahay ha Uways baan ahay bani Aamir nacam bani Aamir ibn Aamir ha min Murad ha thumma min Qaran ha markaas Umar weydiiyay ku yiri baras ma kugu dhacday ha ma ka bogsatay meel dirham la dhigan mooyaan intii kale ilaahay ma ka shaafiyay ha hooyo ma lahayd hooyada ma ka dhimatay ha Umar ibn Khattab ilaa uu yiraahdo ilaahay dambi dhaafii weydii oo saadigu ogaatay nabiga noo ka sheegay kaleey salaatu wasalaam waxa la Uways ibn Aamir nabiga inuu u yimaado waxa uu kaga mashquulsanaa waa khidmada hooyada weeyaan marka hooyadu qiimo weyn bay diinta islaamka ku leedahay Umar ibn Khattab radiyallahu anhu oo xajka u socda ayaa waxay arkeen nin marka aad u soo socdo faraska aad u soo eryanaya marka Umar ibn Khattab baa eego wuxuu yiri ninkaasi kullee anaku noo socday joogsada buu uu joojiyay Umar ciidankii ninkii oo aad u daalan oo aad u naxsan baa marka Umar soo gaaray Umar hortiisu ku dhacay Umar baa marka ku yiri manin cadow eryanayaan oo cabsoonaya ayaa tahay oo ku magan gelinaa mise nin dayn lagu leeyahay oo daynkii bixin kari waayay
oo u baahan in la caawiyo ayaa tahay mise nin naf bini aadana soo gooyey oo xaqdarro ku soo dilay baa tahay markaasuu intaa midna mayhi buu yidhi waxaan ka imid buu yidhi basra ayaan ka imid basra waa magaalo ku taal ciraaq abaa muusa alashcari baa halkaa amiir nooga ahaa haye halkaas anoo jooguu dembi iga dhacay buu dembiga kaa dhacay muxuu yahay khamri baan cabbay buu yidhi leanna abaa muusa alashcari baa intuu qabtay buu iga jaray buu yidhi xadkuu imariyey haye timihiina uu iga xiiray haye farasna intuu igu qaaday buu magaaladii basre i dhex mariyo wuxuu yidhi ninkaa halla cunina oo halla fadhiisanina oo halla saaxiibina oo ka dheeraada buu yidhi wejigaygiibu iga madoobeeyey buu yidhi markaa naftaydii saddex mid bay iigu sheekaysay inaan sameeyo imaa inaan abaa muusa alashcari intoon gaado aan qoorta ka gooyo imaa inaan gaalada intoon iskaga biiro waxay cabbayaanna aan la cabbo waxay cunayaanna aan la cuno iyo kana aan ka mid noqdo imaa inaan adiga kuu imaadood iga qabatid amiirka muuminiinta marka cumar bnu khadaab ayaa yidhi radia allaahu canhu inaad ii timiday ilaahay baa ku waafajiyey buu yidhi inaad gaalo u tagta ha yeelin inaad abaa muusa alashcari isagana intood aad u dhumata aad dishaana ha yeelin mar haddaad aniga isoo gaadhay buu yidhi aniguna arrintaada haddaan shaqo ka qabanaya bui hawsha waan qaban buu yidhi warqad buu qoray warqadda nin kale cumar uma dhiibin isagiibuu warqadda ugu dhiibay isagii ku dheh amiir almu'miniina cumar agtiisaan ka socdaa uu ku soo salaamayey waxaad ku tidhaahdaa haddaad amiirkaagii aan ahay warqadday ku qoran tahay oo xaqa aan kugu leehay abaa muusa alashcari oo aad qadarinaysid warqadda ninkaa uu kuu keenay dhegayso qaabil buu ku soo amray uu soo noqday ninkii cumar weliba ninka ma sii dayn faras buu siiyey lacag buu siiyey dhar buu siiyey kolkuu muddo welibana uu hayey ayuu yihi haddaba imika soco u tag basre ayuu markaa ugu yimid abaa muusa alashcari oo khudbadaynaya markaasuu amiirkii muuminiinta cumar baa i soo diray ajiib istaagay uu ku soo salaamayey warqadaana wuu soo dhiibay akhrisa buu ka yidhi warqaddii buu akhristay ninka faraskaaga saar magaaladii aad la dhex martay marka hore la dhex mar waxaad ku tidhaahdaa la fadhiista la cunteeya la saaxiiba waa walaalkiin uu toobad keenay toobaddu addoonka ilaahay bay ka dhaxaysaa wixii horeen hadal iga dhaco o dhanna waan ka noqday ee walaalkiin ma aragtaan cafiyo anna waan cafiye dheh abaa muusa alashcariyi radia allaahu canhu sidii amiirkiisu uu ku amray buu yeelay halkii intuu ninka ugu yimid uu madaxa ka dhunkaday faraskiisii buu saaray magaaladii uu sidaa usoo dhex mariyey waa walaalkiin inan dhalinyara ka kacay maskiidka dhexdeeda gacantuu taagay yaa rasuul allah ani zinada ha lay fasaxa buuri ma dayn karaye waa la yaabay inaa lilah war maxa markaa buu nabigu ii daayay soo dhawow hale walaalama kula dhasheen haa wayla dhasheen gabdha walaalahay wayla dhasheen gabdhaha walaalaha ayaa kula dhashay in xumaanta lagu sameeyo ma ka raalli tahay markaasuu may waan ku dul dhiman buu yidhi habaryar ma leedahay haa waan leehay habaryaraha in waxaa loola taga ma jecesha aad doonaysana kuu fasaxo may waan ku dhiman buu yidhi dhimashaan ka aqaana markaa aad tiri ii fasax zinada kaba soo qaad haddii zinadii laguu fasaxo ta aad ka zinaysan raggaa halkaa fadhiya unbay ama walaal ugu toosan tahay ama eeddo ugu toosan tahay ama habaryar ugu toosan tahay sida adiguba haweenkaaga aad xumaantaa raalli aad ugala ahayn ayakuna xaasaskoodii iyo dumar iyo hablahooga iyo qaraabadooda gabdhaha qaraabadooda in xumaantaa loola taga iyakuna raalli kalama aba ku yidhi rasuulku markaa yaa rasuulla haddaba ii ducee markaa buu nabigu soo dhawow halkaa buu nabigu gacanta u saaray laabtiisa ilaahu qalbigiisa xumaanta uu ku haminayo ka masax farjigiisana ilaali dembigiisana ilaahu dhaaf buu rasuulku yidhi bisada iyo jiirka maxaa ka dhexeeya is-aragu ma ka dhexeeya soo ma jiirkii baa isku yimiday way tashadeen waxay dhahdeen
habeen walba bisadii 10 20 waa la nadhameeyey seen u badbaadnaa ka tala bixiya jiir baa yidhi markaa ra'yi fiican buu soo jeediyo wuxuu yidhi waa mithaal yani koortan awrta la suro soo ma taqaanaan jaras geela la suro hal la qaado oo bisada qoorteeda la soo suro buu yidhi si markay soo socoto shanqadha loo maqlo dana looga dhuunto markaas jiirkii oo dhan baa yidhi wallahi fikraddaas waa fikrad fiican tala fiican buu soo jeediyey waan isku raacnay marka jiirka sheekhoogii ugu weynaa baa yidhi waa hagaaga ayaa soo suraya buu yidhi soo saamaynta nabiga ku salliya dad muslimiintoo dhan maanta inay diinta dhegaystaan inay diintu nolosheenna ka muuqato inay muslimiintu acaza annaas inay noqdaan waan jecel lahay laakiin marka la gaaro diinta dadaalkeegii nin walba geerka dambe u gashanaya markiiba war waxba geerka dambe ha gashane geerka hore gasho nin sheekha bari qisam uga sheekeeyey wuxuu yidhi nin caalima oo ardaydu aad u jeclaayeen xerta aad u jeclay iska daa xerteen mujtamac oo dhan ba aad u jeclaa akhlaaq wanaagsan buu ilaahay siiyey taqwad baa ilaahay siiyey cilmi baa ilaahay siiyey alla ka cabsi baa ilaahay siiyey laakiin ninka wuxuu ilaahay ku hagaajiyey islaam kulul oo dabeecad adag oo markuu inta uu magaalada socdana kabihiisa inuu qaato looma ogolo masalladu ku tukanaya inuu qaato looma ogolo aqalka markuu galana islaanta ku shaqaysata dhariguu karin biyuhu dhaamin dabkuu shidi iyada dhan buu cuntada siisiin markaasay odhanaysaa magaaladu sheekh bay ku haysataaye aniga agteeda shaydaan baa tahay ii khidmee bay odhan hadal ka keeni maayo uu khidmayn uu khidmeeyaa una ma hadlo ma sheekeeyo awal aqalka gudihiisay ku dirdiran jirtay baa la yidhi markii dambe waxay ku tidhi anu haddee toola waan daale xaabada ii soo guro biyahana ceelka iga soo dhaami ceelka ninka sheekhana waa ninka magaaladu kabihiisa inuu qaato uma ogolo jacaylo iyo ixtiraam ay u qabaan markaasuu yidhi ilaahow astur ilaa haddii la ogaado sheekhiioo xaabo guraaya oo biyihiina dhaaminaya dadka waxay odhanayaan war sheekha aqalka dhib baa ku haysatay inay kaarqabtadan waa maxay sheekha dirata waa la habaarka ku dhici taabuu markaa uga baqayaayo wuxuu yidhi ilaahow miskiinta adii xaaska aad iga dhigtay umulciyaalka ilaahu ha igu hoojina maanta igu astur magaaladii buu ka baxay ardaydii buu muraad yar baan leeyahay iska hadhay buu marka xaabadii buu soo guraya dhul cilmuu tagay xaabadii buu soo guray meel buu ku ururiyey biyihii buu dhaamiyey ilaahow aniga islaantaas ilaahow islaantaayo ummadda kale ilaali buu yidhi libaax socdo unbaa u yimid oo hor fadhiistaa la yidhi sheekhi xaabadiiyo quryihii buu saaray libaaxii biyihiina dhinaca kaleu ka soo saaray magaaladiibu la soo maray sheekhiioo libaax wata markaasaa la yidhi awalba inuu mu'min ilaahay ku xidhan oo karaamo le waan ogeyn inuu ahaaye maantayba karaamadiisii daahirtaa la yidhi albaabkii buu hor dhigay islaantii meel bay ka qaawisto libaax bay aragtay alaabta usoo sidaa ilaahu inuu soo gelin libaaxaas ilaahu libaaxa haygu soo gelin dibadiibuu markaa libaaxii joojistay halkiibuu kaga dhaadhiciyay xaabadii biyihii libaaxuu iska socday isagaa markaa xaabadii aqalka soo geliyey biyihii buu soo geliyey markaabay ku tidhi dameerka foosha xunne maanta soo rarteen ayaa kugu caawiyey ka tegi nabiga ku salliya ina kayda kuna cadiim ilaahay baa sheegay soo maa hadda way arkaysaa indhahayga ilaahay inuu u gargaaray ninkaas maca daalika haddana ma sadaqayso waxay ku leedahay war dameer fool xumaad wata maanta xagga ka keentay oo iska aamusay marka muddo yar kadib islaantii baa ka dhimatay sheekhii maadaama islaantii ka dhimatay iyadoo aanan la ogaan dhibta isaga ay ku hayso dadkii iyo magaaladii baa isku tegay waxaa la war sheekha gabadh wanaagsan oo akhlaaq wanaagsan oo xaaskiisii hore kaloo lamida waa in loo doondoonaa gabadh wanaagsan baa loo keenay oo sheekha qadarkiisa garanaysa daadna ma aragtaanay markaasa haye aqalkii baa loogu hooyey dee waxay tidhi
way og tahay sheekhu inuu libaax soo raran jiray ma og tahay iyadna waxay leedahay sheekhu libaaxiyo wuxuu soo rari doonaa iyo maaragtaalay libaaxi baa biyaha iyo xaabada kuu keeni doona dee markaa bedel sheekh xaabadii iyo biyihi way naga dhammaadeene markaasuu dhib male iska fadhi insha allah ilaahay baa noo keeni dooneen dhulkii uu tegayey buu tegay libaaxii ma iman de markaas isagii baa markaa ay noqotay inuu xaabadiina soo guro biyihiina soo qaado markaasuu magaaladii la soo dhex maray waran inkaar qabtada sheekha aan u dhisnay ee sheekha raratay maxay ahayd oo sheekh libaaxiina may baa lagu yidhi wuxuu ihi libaaxii islaantii hore iska lahayd nabiga ku salliya akhlaaqda allah hayna siiyay innaka yacni qisadaasi waxaan u soo qaatay haddii akhlaaq wanaagsan aada leedahay dadka ugu xaqle inay arkaan waa dadkee waa dadka guriga jooga caaisha radia allahu canha baa nabiga la weydiiyo o lagu yidhi nebiga akhlaaqdiisa ka warran baa lagu yidhi aqalka markuu joogo siduu ahaa marada ka googo'day buu nebigu karkaran jiray tiri kabta ka go'dana isagaa gacantiisa ku tolani jiray neefkiisana isagaa maalan jiray annakana aqalka dhexdeeda adeeg waxaan u baahanay buu noo qaban jiray tiri laakiin salaaddu hadday gaadhay tiri caaisha nebigu salaad buu usoo bixi jiray bay tiri ninkee baa maanta odhanaya intuu xaaskiisa ku yidhahda iyo hablihiisa aabba bal maanta nasta anaa dhariga inii karana muu jiraa aniga maanta dhari karinta igu daaya ma dhici karto waxaaban u aragnaaba ihaano inay tahayba inuu ninku reerkiisa u khidmeeyaa uu xaaskiisa u khidmeeyaa uu ubadkiisa u khidmeeyaa uu noqdaa nin adeegayo akhlaaq wanaagsan waxaan u aragnaaba nin doqon oo islaamtu ay ka adag tahay inuu yahay sidii nin culammada islaamka ka mid a ayaa la sheegay hooyadii markii aabihii uu ka dhintay ayay hooyadii ku dartay safar markaabay sahayna weysiiso ay ku tiri magaalada galo majaalista culummada orodoo cilmiga ka soo baro akhlaaqday ku tarbiyadaysay iyo dhaqankiina u wataa safarkii uu la socday ayaa habeenkii niman tuuga intay dhexda u galeen ayaa dadkii la go-doomiyey qof walba markaa wuxuu uu lacag iyo dahab uu haystay qarsanayaa yarkii yaraa tuugii u horreeyey qabtay baa ku yidhi lacag maxaad wadataa lacagtuu watay oo dhan buu sheegay baa layidhi lacag aad u badan bay ahayd markaabuu ninkii tuugii ilmi yaraa uu ka naxay yarowe xoolaha intan leeg adeer maxaad iskaga sheegtood u qarsan weyday markaa buu hooyadii baa igu tiri weligaa been ha sheegin haddaad been sheegta ilaahayna uu ku nici bini aadamkuna way ku nacayaan yarkii yaraa nimankii tuugiintii way la yaabeen lacag badan buu wataa weligii been ma sheegin muxuu been u sheegi waayey hooyaa ku tarbiyadaysay tarbiyaddu aqalka kala yimiday ayuu mujtamaca la dhex socdaa aqalkana qofka jooga waa haweenayda weeyaan aabbuhu inta badan dibaduu joogaa waa inanta waxa aqalada joogta aqalka maaragtaana 7 wiil ay gasho 7 wiil oo walaalaha guriga ay galaan hadday inan la joogin gurigaa basaas iyo daranyo waa laga dareemi laakiin guriga inan keliya ay ku nooshahay iyo 7 wiil oo walaalaheeda ay ku nooshahay gurigaas wuxuu ku qurux badan yahay waa gabadha weeyaan salaadii subax markii laga baxay buu nabigu yidhi ayaa xalay toola arkay buu riyo suuradii baa socota taladii baa socota tashigii diintaa socda nin saxaabada ka mid ahaayo weliba ragga busadada ka mid ahaa ayaa yidhi xalay toola anoo dhinacna kasii loolanaya dhinacna ka soo jeeda ayaan maqlay buu yidhi dhawaaq dhegtayda lagu dhawaaqaayo erayadiina waan xasuusanahay nebi allow markaa buu nebigu yidhi erayadii ma xasuusan tahay haa bal erayadii xalay dhegtaada lagugu dhawaaqeed maqlaysid noo sheeg markaasuu sii daayey ninkii aadaankii buu sii daayey allahu akbar allahu akbar markaasuu yidhi cumar bnu khadaab aniguna manaamka xalay waan arkay 6 nin oo saxaabadii ka mid a ay isku mid bay yidhahdeen annaguna xalay riyadaa waan ku riyoonnay markaa buu nebigu yidhi adinkeenni waa kaase laakiin aadaankaa bilaal bara buu rasuulku ka yidhi